السلام عليكم. مقعي واحد محمد عبد القادر عبد الله لي قال محمد عبد الله إن أنا وحدار إن قشة مرة وحرنا ينسوا قابي يدو الله هذا وحنا ورتكو مركورنا نيشة شاكير أو دعضي أو ويل لحية تفنجر أيمد أو يقلها الله وحويري أن وحالي ودي صومالي اللي ودي إيو قبيلك إيو سان يقول بحان وحوري معلومات دي مركي ودي سي وحا وجوابا قرن واي maalintii ku xigtay ayaan waxa aaday inaan website kan aaday inaan soo fiiriyo ama research sameeyo Soomaali ahaan aan fiiriyo qabiilka iyo Soomaalida say yihiin inaan wax badan ka barto wuxuu yiri waxaan la yaabay oo aad marka qaarkood in leegi yimaado Soomaali oo hal luqad ku hadasho hal diin leh dad isku mid ah inay qabiil isku dagaalaan marka su'aalaan weydiiyay waxaan ku yiri adiga maxaa ka qabtaa qabiilka horta wuxuu yiri mar walba qabiilka la weydiiyay in laga yimaado waxay iga yimaada marka qof Soomaali arko waa farxa waayo waqtigeyga badan waxaan aan la qaybsadaa dadka Ingiriiska la qaybsadaa run ahaantiina markuu iga sheekeeyay qabiilka soo iga sheekeeyay oo ama aabihiisa hooyadiisa ugu sheekeeyeen wuxuu yiri in laga yimaado markii la ii sheego 1 milyan ku dhawaad oo qof ayaa dhimatay waxay ku dhinteen qabiil ku dhinteen markii la isweydiiyo maxay u dhinteen ma aqaano yiri one reason qof iseen kara ma jirto dhigi karo waxay ku dhinteen good reason waxaan leeyahay horta koowan waxa aaminsanahay Ingiriiska Soomaalida joogto inay yihiin dadkii berito Soomaali tarin lahaa in horta qabiilka laga dheeraado inay horta aad iyo aad muhiim u tahay u arkaana haddii ay Soomaalida inta joogto Ingiriiska joogaan oo maanta ugu badan yihiin hadday midoobaan inaan wax qaban karno inaan ku dheeraado maraba kaliya waxaan leeyahay qabyaaladda in aan iska joojino oo Ilaahayna una siiyo aduu Ilaahay midnimo aad u wanaagsan waxaan kaliya leeyahay hal wax kaliya Soomaaliya maanta waxa xuduud la Itoobiya Kenya iyo badweynta Hindiya ninka Soomaaliga maanta adaa u baahan gabadha Soomaaliga maanta adaa u baahan haddaysan midnimo jirin waxa ogaataan maanta in cadawga naga faa'iideysanayaan waa maasantiin